waxaa si weyn suuqyada magaalada caasimadda ee Muqdisho looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda Ciid al-Fidriga oo sida loo badinayo saacadooyin naga xigaan. Halkani waa bartamaha suuqa degmada Xamarweyne waxaa u soo dukaamaysi tagay boqolaal dadweyne ah kuwaas oo u diyaargaroobay maalinta koowaad ee Ciid al-Fidriga. Suuqa degmada Xamarweyne waa meelaha ugu mashquulka badan waxaana intaan ku sugnayn indhaheen ay qabanayeen kumanaan dadweyne ah kuwaas oo isugu jira caruur, waalidiin, dhalinyaro iyo dad ah kuwaas oo dhammaantood u dukaamaysi tagay suuqa degmada Xamarweyne. Qaar ka mid ah dadkii dukaamaysanaya ayaa Hon Cable TV la hadlay iyagoo dareenkooda cabiray. aad iyo aad waxaa dadku isku diyaarinayaan ciidda soo socota Ciid al-Fidriga. Aan walba ka dukaamaysanaya suuqa. Caruurtii waa loo adeegaa waxa loo adeegaa caruurta in laga farxiyo la rabo annagana waa adeeganayna. Aad iyo aad soonka si fiican ayuu noogu dhamaaday alxamdulillaah rabbil caalamiin. Haddana waxaan galeynaa ciidda iyadana qeyrkeeda sugayna. Ciid mubaarak maanta waxaa ka adeeganaa yani suuq Xamarweyne waxaan isku diyaarinayaa ciidda. Wallaahi dharka ciidda aniga iyo familka ana u soo wada doonay alxamdulillaah waxaan soo dhaweynaynaa ciidda insha Allah. Wallaahi aad ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay waxaa in Ilaahay subxaanahu qaadir noo qadaray inaan bisha barakaysan ee Ramadaan aan si nabad ku soo soono alxamdulillaah. Ilaahna waxaa kaga baryaa inuu yani camaashi iyo qeyrka asoo sameeyay inuu Ilaahay naga aqbalo. waxaa jooga suuqa Xamarweyne oo ku faraxsanahay maadaama berita ciid ay tahay waxa ka adeeganaa suuqa Xamarweyne waxaa soo gatay dharka ciidda soo gatay qayb kamid ah hadda aad u faraxsanahay waxaa waaye haaf ay dhiman hadda qayb kamid ah wata suuqa maanta aad u kala kacsan yahay aad u shiriya maanta sarwaal wata waxaa waaye kaba iyo waxa ay dhiman hadda adiga ku jira ما شاء الله درينكي قاعد وفي عني ما دام أنا حمرين أنجوجو وسائد وسوقة لكن درينكي حل سوكو كرماهن كل در عيد ذا وتاي كل عيد بريتان سكو ديارنا يا نفتي ذاك هذا لماني نفهم مجرتي كل أنا كل جالس سوى ديكتي دت كلنا وحوض واد ديار سدينا وفلا حيل ما دام عيد بريتها سان أنا حود ديار جروبي إن shacabiyana la qaato. Mid ka mid ah ganacsatada dharka ku iibiya carwooyinka degmada Xamarweyne farqi weyn oo dhaxay waayo maalmaha ciid waxaynu aragnaa macaamiil fara badan aan maalmaha kale aan la arki jirin ayaa isna sharaxaad ka bixiyay sida ay bulshada ugu dukaamaysanayeen maalmahan iyo isbeddelka ku yimid qiimaha dharka. diyaargarowga ciidda si wanaagsan u socda maalmahan farqi weyn oo dhaxay waayo maalmaha ciid waxaynu aragnaa macaamiil fara badan aan maalmaha kale aan la arki jirin dad fara badan oo bulsho badan oo u badnaatay sida caruurta farqi weyn oo dhaxay qiimaha hadda aynu gadno waa qiimo aad u qaali ah waayo maalmaha kale waxa aynu gadno waa jiib wax raqiis ah laakiin maalmahan kale waynu ka duwanahay waxaynu aragnaa dad fara badan laakiin dharka aynu soo qaadno ayaa mar walba wuxuu leeyahay heerar fara badan oo isu bedel qiimaha waxa isku jiraan dhalinyaro caruur dad oo u badnaan under 20 years inta badan anoo imaad inaga aad iyo aad u adeegnaa si wanaagsan u adeegtaan suuq aad u wanaagsan yahay maalmahan aad u wanaagsan laga soo bilaabo 25 bisha Ramadaan. Maxamed Qays Xasan Maxamed Hon Cable TV magaalada Muqdisho.